Real love is for the people you can trust. Got your back no matter what, even when push comes to shove. I'm talking real love. It ain't something that you can touch, cause it's a gift sent from up above. It's for the sake of Allah. I'm talking real love. It's for the people you can trust. Got your back no matter what, even when push comes to shove. I'm talking real love. It ain't something. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابته أو مركزته إداوته وسلامتهين مركز تأجوكتين. maanta waxaan hayaa sheeko oo nicajibi geli doonto insha Allah. sheekada ay ku saabsan tahay wadanka Mareykanka, khaasatan magaalada New Jersey. marka waxaa sheekada ahayd gabar oo u baxday inay soo daneysato. waxay qaadatay gaarigeedii, way baxday marka si ay u socotay gaarigii soo iyadoo meel cid la mareyso. waxaa ka dhamaaday gaasolinkii ka dhamaaday marka iyadoo inaas gaas asahay iyo waxyaalahaas maba dareemin. marka gaarigii waa iska istaagi marka iyadoo naxtisan oo yaaban oo leedahay gaarigii maxaa ku dhacay oo wareersami intaad abaartaa say wax yeeshaa gaarigii ku dhex xiran tahay meeshina cid la way. gabadhii si oo gaarigeeda ugu xirneed waxa uu imaaday nin oo homeless ah. maxaan ka caawiyaa waxaa soo dhahay qoftii shaway ka tiri. marka asigna iska baxay marka ninkii maadaama oo shubka dhaaday. marka iyadoo waxay taray gareesi cellphone iyo waxyaalaha sida inay soo baxsato oo dad caawinaan inay wacato iyo mise boorsadeedii iyo wixii soo bilaad. marka boorsadii ay fiirisi baawurkii boorsaba ma u fuusho, telefoon ma leh, boorsa oo wax ay ku gadato iyo lacag dhan ma haysato. bas baawurkii isku kuusi iyadoo yaaban oo naxtisan. waxay leedahay telefoon wacatid ma leh, qof oo la xiriiraysid ma leh, baawurkii wax oo gaas oo bees lagu shubanayna ma leh. marka iyadoo ka murgeysan marka wiilkii u soo naqday haddana waxaa isku dhahay qofyahay waa murgeysan tahay, waa ujeeda maxaan kaa caawinaa aa u baahan tahay. qoftii shub waayo bas waxaa isku dhahay marka 15 daqiiq camal isi oo ku soo naqanaa. wiilkii waa baxay marka adiga wax malaska maqnay nusko saac malaska maqnay. waxaa soo imaaday asigoo oo wax wado magaciisi caag oo gaas ku jiro. waxaas dhahay intii awoodo gaaskaanan ku keeni, inta awoodane $20 ahaa is dhahay, laakiin waxaan jeclahay inaa oo gurigaaga isku celi karo. marka gaaskiyaas uu shubay. marka waxaas dhahay waa kana marka gaarigeeda kacsatay waa u kacay. marka waxay tiri iyada isu gurigaan ku laabanaa marka waxaan ku soo qaadaa. marka bas waxaas ku dhahay ninka aniba qof ay isii beesadaneeti, qof ay isii 20 usin xaal waa maal oo isha ka oo iska dayay waay oo qof ay isii is dhahay. marka aniga kan bay back ina oo isii sidba ma ahanaas dhahay. marka adina kan waa ku furtay le wax ma ka rabi iska soco. maya ina guriga ku laabto waay qof oo dhan oo sidaan. marka islaantii waxa ay la naqatay inay oo fajac amal oo la naqatay. marka oo qofkii ay ka cabsanaysi oo maanta inaas caawi oo u baxay nus saac meel oo dariiq oo dhaweynas u baxay soo luugay oo xaalo maal bas aswati gaas soo gaday gaaskiis ay ku shubati. marka qoftii oo marka iyadoo badhoos maanta waaba meeshan waa ku noolaayay mu umaleyn inay meesha ku noolaanayso ama lagu dilina ama waxyaalaas ku jira iyada maskeen. marka waxay tiri maba anfacay tiri ma u soo ka diidi, laakiin iyadu waxay tiri maba anfacay waa laawati. marka gurigeeda u laawati, gurigeeda gaartay qof oo
ayada ku khatuubanay oo isguursa rabaan ay soo wadatay waxay tiri nin oo maanta oo noloshiisa badbaadi marka beesan u qaadina adduunyo u sameynayna okay way isu dhahay saaxiibtiisi marka waxay sameeyeen lacag soo qaadeen dukaanay soo mareen horta ko dharay soo gadgadeen raashin soo qaadeen iyo lacag fiican oo soo qaadeen soo baxeen marka waxa loo soo socdaa ninkii oo meesha doorka oo baawr ku halaal waa imaadeen eeridii ninkii waa is arkeen marka waxay ku dhaheen alaabtaaneti waa kana hadiyadaada waaye wixii noo qabati abaalkiisa waa kana markeedii horeba waxay taray gareysay markii gaaska ugu shubay ba isaga inay wax u tarto marka isagan waana weydis eeda maxaa aan ku qabtaa maxaan ku tara isaga may asdahay marka wax ku sameey caawinaad oo maadaama dib oo dhibaataysaneed si dhibka ood ugu bixilak ku sameeyay ina oo aniga oo beesay iso gudid oo kale saasay sheekad ahayd marka qoftii waxay gashi computerka wax ay ka sarj gareysay marka go fund me marka kaasid barnaamijkaasi tahay raadisi internetka waa google gareysay barnaamijkii soo setup gareysay adduunyo marka lacag oo waxa bilaabatay lacag in loo soo aruuriyo lacagtii marka loo soo fund gareeyo oo loo soo aruuri marka lacagta oo gaareyso ilaa $360,000 oo US ay soo aruurisay islaantii markay soo aruurisay waxay sameysay meelaha guriga ay aadi guriga beec fiican ku soo heshay guri weyn u gaday guri markii ay gaday waxay u soo hukaab gareysay meel wax isku shaqeysto oo kale ay u sameysay sis u noolaado oo noloshiisa guri leeyahay oo guri loo gabo will still wax dhaqaaq isku soo bi wax wixii dareemkiisa ahaa jiri alxamdulillah ilaahay agtiisi loo soo hor dhig marka bangi ay u furtay iyo waxyaalo oo asiga oo u baahnahay dhan waa u diyaarisay marka adduunkiisa dhan waa u kala dibirtay qoftii si waxba inaas u baahnaanin marka waxaa jirtay lacagtii oo loo soo program gareey marka ilaa hadda ma dhaha kari laakiin ilaa waqtigiisii baasada waa u soo soconays muku okeen le 360,000 kaliisa muku okeen marka lacagta asi waa accountiga ku soo dhaceysay le marka asagana accounta loo furi bangiga u furtay marka noloshiisi oo waxa badan ay ka bedeshay oo qofkii oo awaalka u galay oo homeless ka ahay Allahu akbar amalkaaga saalixan marba ma dhumaayo rabbiga agtiisi marna ha ku xirin qofkaasiti inaas ku shukriyo oo isku soo maadnaq amal thanks isku dhaho waxaan isu bisi waxa qofkaas waxa ka raadsan amal marka waxa shay marka suubinaysid oo suubi wajillahi always marka kaas suubisid awal gudkaagene rabbiga ku siinaya hada sidii ninkii oo kale mu usubinin ida waxay ku gudo doontaa markoosa waxas usubi ilaahay dartiisa waxas uu qabtay qof oo maanta oo meel cidlo oo fadhiso oo dhibaataysan oo gas baawr ay ku dhaqaaqjisa lahayn maanta boorsadoona baawrkeeda u fuulin beesa oo u saarneen asbaxsadi marka usiga markiiba waa ka diiday bees inay u soo guddo oo baxdo baxa may asdhaay laakiin ida usiga sidii ay ugu soo bisay marka ina awaalkiis inay u guddo marka usiga marka mu suubinin awaalka inay u guddo marka usif yihiin ilaahay dartiis suubi marka usiga khayraadka oo ilaahay siina subhanahu wa ta'ala kan way marka wax loogu bedeli $20 as dhiibti maanta $20 maxaa ugu bedelmi 360,000
oo meel oo marka oo la hubayo intii kala soo dhacdina ka badan kala iska soo dhicisa accounti ma joogsanaynin marka subhanallah. waxaan jeclahay videoganeti inaas ni cajibiyo marka waxaad igu dadaashiin comment inaad isoo qortiin iyo like, subscribe iyo share insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ino video dambe.